السلام عليكم. haddii aad hadda gaartay 24 ama 25 ama ku dhowdahay xalaqadan si weyn ayay kuu qusaysaa. waxaan halkan kugu soo gudbinayaa 10 nasiixo kaaga imaanayso dad kala duwan oo soo maray tijaabooyin badan geedi socodka nolosha. dabcan qof walba duruufo gooni ayuu leeyahay, qaabka ay noloshiisa u socotana cid uga aqoon badan oo bini'aadam ma jirto. laakiin waxaan aad u rajaynayaa in wax uun aad ka faa'iidi doonto 10kan nasiixo. ku soo dhawaada mawduuceena maanta. haddii aad hadda gaartay 24 ama 25 waxaad maraysaa meesha ugu fiican dhallinyaranimada. badanaa waa marxaladda dadka jaamacadaha soo dhammeeya shaqo bilaabaan, nolosha dhabta ahna fooda geliyaan. waxaa kuu soo xirmaaya marxaladdii ahayd hooyo canjeeraysi iyo aabba shaati iigad. waxaad noqotay qof dhammaystira dhinac walba. qodobadan soo socda waxay ku wada socdaan dhammaan labada jinsi, rag iyo dumar. qodobka koowaad, jooji shukaansi wadareedka, damcidda gabar kasta oo kaa soo horbaxdo. haddii aad wiil tahay markaad gaarta heerkan, waxaad ka soo gudubtay marxaladdii qaangaaridda ee ahayd in gabadhii ku cajabisaba aad ku dhahdo ma isbaran karnaa, adigoona lahayn ujeed guur keliya sheeka iyo gabar ayaan isnaqaanaa. marxaladdan waa wakhtiga aad si xasilooneen u fiirsan lahayd gabadhii aad si xalaala u guursan lahayd, kana bixi lahayd sheeka ciyaaleedka waan ka helay abbaayada. waxaad ka soo gudubtay marxaladdii hayaacdada, waxaad gashay marxalad ka fog dhacdhaca iyo iskudayga in gabadhii kaa soo horbaxda baad isku daydo la hadalkeeda. waagii hore haddii aad fiirin jirtay gabadha quruxdeeda muuqata oo ah qurux aan qiimo weyn lahayn, quruxda dhabta waa qalbiga, akhlaaqda, dadla dhaqanka wanaagsan, fahanka nolosha, waana midda qofka bini'aadamka lagu raaco. inaad qofka ku raacda qiimihiisa hoose, macdanka ku duugan ee aadan raacin daboolka saaran oo ah quruxda muuqato. tusaale laga yaaba inuusan ku qusaynin laakiin macquula. milkiilaha facebook waa bilyaneer, wuxuu awooday inuu guursado maraykan gabadha ugu qurxan, laakiin ma uusan samaynin. wuxuu guursaday gabar uu arkay in noloshiisa ay wax ku soo biirin karto. waa gabar qurux la sheega aanan lahayn oo shiinays asal ahaan ka soo jeedo. waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso, aniga haddaan haysan lahaa hantida uu haysto, waxaan guursan lahaa gabadha ugu qurxan caalamka. gabar kala jiidan, indha waaweyn, dhexda u yar, markay socoto gargariirayso. tilmaamaha aanan jirin ee dadka qaar u yaqaanaan qurux. laakiin canugan bilaash milyaneer uma noqonin. waa nin caqli badan. wuxuu raadsaday qof noloshoodu iskeenayso. quruxda muuqato way dhammaataa, waxaana soo hora keliya quruxda dhabta ee la dhaqanka iyo akhlaaqda wanaagsan. qodobka labaad, ha ka walwalin waxa ay dadka kale kaa aaminsan yihiin. muhiim ma ahan waxa dadku kaa aaminsan yihiin, waxaa muhiima waxa aad tahay. waa arrin fiican inaad tahay qof dadka qiimo ku dhex leh, hadalkoodana qiimeeyo. laakiin hadalka dadka kale inuu saamayn toosa ku yeesho noloshaada oo gacan ka geysta qaabkaad u nooshahay ayaanan fiicnayn. haddaad ku qanacsantahay inaad xirato okiyaale ama muraayad xiro. haddaad qurux u aragta dhexxirashada, dhexda xiro. muhiimaddu waa inaad dareemaysa qanaaco, arrinkuna yahay mid xalaala. weligaa ma aragtay qof timo badan kuula muuqda qaab foolxun, kadibna ma istiri qofkan timaha muu iska xiiro. haddaba qofkaas asaga ayaa sidaas qurux u arka kuna qanacsan. ma aragtay qof xidhan dhar hal kalar leh, kula foolxun adiga, laakiin asaguu la qurxan yahay. waxay dhahaan dhar markaad xidhanayso ha u xidhan dadka inuu qanciyo, ee u xidho inaad adiga ku qanacsan tahay. haddii kale weliga waxaad xidhnaanaysa hal shaarood dharkaada ugu jeceshahay, adigoo aaminsan inuu qurux yahay, dadkana cajabinaayo. murugoonin haddii qofka ku tilmaamo doqon, waxaa tahay waad is og tahay. haddaad gaaban tahay, haddaad dheer tahay, buuran tahay, caato tahay, oo qof kale isku day in arrinkaas ceeb kaaga dhigo, waxbaa ka soo qaadin. marxaladdan waa wakhtigii aad go'aan kaa soo baxo noloshaada ku hagi lahayd. haddii aad dadka hadalkooda dhegaysato, weligaa halkaas ayaa taagnaan. qodobka saddexaad, ha eedayn labada waalid. haddii aad dareemaysa in labadaada waalid ay ku dayaceen ama ayna kuu samaynin nolol karaamo leh ama xitaa iskuul ku geynin, maantana aad 24 ama 25 marayso ama ku dhowdahay, ha eedayn labada waalid. si kastay kuu dayacaan, waxaadan ka soo bixi karin abaalkooda in adigoo cad hiliba ay ku soo koriyeen, maantana aad tahay qofkaas xoogga badan. eedaynta waalidka waa tallaabo aad u liidato, waxna aanan ku soo kordhinaynin noloshaada. bani'aadamka waa noolaha keliya ee markuu dhasho hadduuna helin qof daryeela dhimanayo. xoolaha canugu markay dhalaan haddii ay ka tagaan wuu noolaan karaa, laakiin bani'aadamka waa noolaha keliya ee daryeel hadduuna helin horay ka dhimanayo.
marka hooyada waxay ka dhigan tahay in ay naftaada soo badbaadisay. abaal noocee ayaad siin lahayd qof adigoo dil ku xukuman daqiiqadii ugu dambeeyey ku badbaadiyey oo weliba muddo 24 sana ku quudiyey si bilaasha? waalidku waa sidaas oo kale. qodobka afaraad, la dhaqanka ehelka. ka istaag daandaansiga iyo gebgebta. inta u dhaxaysa 15 ilaa 20 ama wax yar ka kor waxaa caadiya in dhallinyaradu yihiin kuwa dhib badan, qayliyo, la dagaalama qaar ka mid ehelka sida gabdhaha, waalidka. haddaba daadan markaad gaarto waxaa la gaaray waqtiga aad damin lahayd dabka dhacdhaca oo aad xasili lahayd. waxaa tahay qof buuxa loogana baahan yahay deganaan in aad si weyn qiimo ugu yeesho ehelka, walaalaha iyo labada waalid. waxaa sii dheer markaad 15 jir ahayd haddii aad walaalka ama walaasha la dagaasho natiijo saamayn yarle ayaa ka dhalanayso. waa carruur aanan xoog badnayn oo isdagaalay. laakiin ka waran 2 nin oo 24 jir ah oo isfeertay. waxaa ka dhalan natiijooyin xunxun. waxaa dhici karta in mid ka mid a middi ama aalad waxdisho adeegsado. markaad gaarto 24 sano qaamuuskaada ka saar wax la yidhaahdo la dagaalanka walaalaha iyo qaraabada kale, sababtoo natiijadu waxay noqon mid lagu ilmeeyo iyo weliba inaad la dagaasho dadka kale caadiga. muranka iyo buuqa cayda aflagaadadu ma fiicno. waxaa fiican qofku inuu noqdo qof musaalima oo aanan dhib badnayn. qodobka 5aad, caafimaadkaada qiimo weyn sii. waxaad tahay qof dhammaystiran dhinac walba, waxaadna fooda gelinaysaa nolosha dhabta. noloshan waxay u baahan tahay caafimaad. caajiska iyo iska fadhiga iyo walwalka waxay sababaan cudurro kala duwan. haddaba waxaad uga hortegi kartaa samaynta isboortiska, jirdhiska iyo dhaqdhaqaaqa. waxaa jirta maahmaha carbeed oo aad u qiimo badan oo leh dirham wiqaaya khayru min qintaari cilaaj. dirhamka hortaga wuxuu ka fiican yahay maal badan oo aad isku daawayso, taasoo in aad socoto, jimicsato, isboorti samayso. waxay ka hortagaysaa cudurrada sida sonkorta, cayilka cudurka. lacagna uma baahno in aad socoto. lacag kuma bixinaysid si aad u socoto. laakiin haddii aad jirrato ama xanuunsato waxaad u baahanaysaa hanti badan si aad isu daawayso. caafimaadkaada waxaa ka mid a inaadan habeenkii soo jeedin sabab la'aan, in aadan cunin aafada jaadka, cabbinna sigaarka. qodobka 6aad, tashiilo. qodobkan wuxuu u egyahay kii ku socday dadka 30 gaaray. muuqaalkii hore haddaadan daawanin kommentiga ugu horeeyaad ka heli kartaa linkigiisa. intay doonta ha ahaatee waxaa ku soo galo lacag ama maal, waxaana macquula in aadba shaqayso. haddaba mustaqbalka ku hor yaalla u diyaargarow, waxna kala reebo. qodobka 7aad, iska jooji fawdada. dadkeenna ku soo koray dalkay gaar ahaan la soo indhaqaaday burburka iyo nidaam la'aanta. waxaa dabiici ah nasiib xumo in aan u noolaano qaab fawdaa dhinac walba nolosheenna, sida inaan qof booqanno waqti xun oo aan munaasab ahayn. waxaan xasuustaa gabar ilaa 5 canug iskool u dhigtaan. wakhti ay qada u karinaysay ayagana iskoolka ka imaan rabeen ayaa waxaa u yimid reer dhan oo socdo, umayna soo sheegin in ay imaanayaan. murug iyo maxaan sameeya ayaa soo foo saartay gabadhii. waa wakhtigii ay ciyaalka iskoolka uga imaaday qada siin lahayd. waa waqti cariiri ah oo aanan munaasab ahayn. qur'aanka haddaad si fiican micnihiisa u dhuuxdo waxaad arkaysaa inay jiraan waqtiyo aanan la isbooqanin. waxaad xaq sharciga u leedahay inaad qofkaas albaabka ka celiso oo aadan ka furin hadduu raba ha xanaaqo. wa in qiila lakum urjicuu farjicuu. fahanka suuratu nuur ayaa kuugu filan inaad ku noolaato nolol ka fog fawdada oo micno leh. waxaa jira 3 waqti oo aanan la isbooqanin. ma ahan waxaan iska leeyahay, waa waxa ilaahay soo dejiyey oo ah sida ku xusan suuratu nuur. waqtiga koobaad qabla salaati alfajr, ka hor salaada subax, oo ah waqti aad xasaasi u ah. waa waqti aanan munaasab ahayn in la isbooqdo. waqtiga labaad xiina tadacuuna thiyaabakum min adhahiira, waqtiga duhurka ah ee dadku guryahooda ku nasanayaan. waa waqti aanan sidoo kale ahayn munaasab in la isbooqdo. waqtiga saddexaad min bacdi salaati alcishaa, kadib cishaha oo ah waqti dadku cashaynayaan, sidoo kale aan ahayn waqti munaasaba. 3 cawraatin lakum, wixii intaas ka baxsan waa la isbooqan karaa. islaamnimadu ma ahan sheegasho iyo wax la iska dhaxlo, waa dhaqan iyo qaab nololeed rasmi ah. qodobka 8aad, bara kelmadda maya. maxaa loola jeedaa? waxaa horey loo yidhi raaligelinta dadka waa wax aanan la gaari karin.
waxay leeyihiin waa arrin fiican in xilliyada qaar aad adeegsan karto kelmadda maya. tusaale, adiga howl muhiima kuu taallo, haddii lagugu yeero wax aanan faa'iido kugu jirin ku anfacayninna waa inaad ugu yaraan adeegsan karta kelmadda maya ama waqti kale nooga dhiga markaan hawshan dhammeeyo. waa wax laga murugooday in dadka qaar sigaar ama qaada cunaan. hebeloo saaxiibkay ah ayaa cab i yidhi, berri markaad yeelatay ilka dhuxul u eg caafimaadkaadana jug culus gaarto ayaad ogaan qaladka iska raacidda arrinkaas. qodobka 9aad, wax akhrin la'aanta. haddii aad rabta inaad noqoto qof ka weyn da'da uu jiro, wax akhri. wax akhrinta waxaad ka dhaxlaysaa xikmad, deganaan, caqligan uu kuu siyaadi. waa arrin la tijaabiye oo xaqiiqi ah. wax akhrintu waa soo koobid tijaabooyin khibrado sannado badan ah. hal bag oo aad akhriso ayaa laga yaabaa inaad ka hesho wax ka badan wixii aad ka heli lahayd sannado badan oo aad noolaan lahayd. haddii aad rabta inaad ka baxdo caqliyadda tuulannimada gobolaysiga oo aad u fikirta qaab ka baxsa sanduuqa ciriiriga aad ku jirto, fadlan wax akhri. rasuulka sala allahu calayhi wasallam markii loo diyaarinayay hoggaaminta jin iyo insi ee waxyiga lagu soo dejinayay, wixii ugu horreeyey ee lagu soo dejiyey waxay ahayd iqra', wax akhri. waana hadal ku wajahan ummaddiisa. wax akhrintu waxay kaa dhigaysaa qof sare oo qaab caalima u fikirayo, qof jiro si dhab ah. waa tii aan soo sheegnay in milyaneerada iyo madaxda caalamka ay wax akhriyaan, qiimo weynna siiyaan wakhtigaas ay wax akhrinayaan. qodobka 10aad, internetka aad sabab la'aanta u dul fadhido. internetku waa waddada ugu sahlan ee wax lagu gudbiyo, la iskulana xiriiro. muuqaalkan aad daawanaysa hadda net la'aan ma suurtoobi lahayn in aan youtube soo geliyo, laakiin waa midi laba af leh. netka haddaadan ka faa'iidaysanin, wakhtigaada oo ah cumrigaada ayuu muudsan, kadibna iska tufi lafa qalalan oo khasaare iyo fashila. internetka waa nimco ilaahay xaggiisa ka imaaday. adigoo gurigaada joogo ayaad wax badan baran kartaa. intii aad facebook kor iyo hoos u gadin lahayd, akhri wax faa'iido kuu leh. runtii aniga inta aanan kanaalka ogaansho furin waxaan ahaa dadka iska dhex fadhiya internetka, inkastoo aan jeclaa daawashada dokumentariyada, laakiin wax weyn kama faa'iidaysan jirin internetka. laakiin hadda wax badan ayaa isbeddelay. inta badan waxaan raadiyaa mawduucan ku soo gudbiyo kanaalka ogaansho. waxaan isku dayaa in wax uun aan ka faa'iidaysto internetka. aad ayaan u murugoodaa markaan soo xasuusto wakhtigii badnaa aan ku khasaarin jiray internetka. waxaa la yidhi in aad soo daahdo waxay ka fiican tahay in aadba imaanin. intaas ayaan jeclaaday inaan idinla wadaaga maanta. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.